waxgaradka culimaadudiinka cuqaasha dhalinyarada qurbo joogta iyo hooyooyinka beesha jidwaa qabsame ee degan maamulka magaalada Qabri Bayax ayaa kulan ay yeesheen oo kaga hadlayeen danaha beesha waxay sidoo kale ugu jawaabeen gudoomiyaha ururka SSI ee sii socod iska hadal ama iska mirqaan gaar ahaan unug hoosaadka bal iyo xoolo cirdoon ee dhawaan lagu aasaasay waqooyiga Ameerika maxamed badan mas'uuliyiinta sare ee ururkaas iyo seelashoodaba kuwaasoo nooca halgankooda uu yahay sii socod iska mirqaan iyo xoolo cirdoon jihooyinka iyo hadafka qorshahooduna uu yahay daaqida balka xoolaha loo dhigo waa sida ay iyagu maangaabka ay shirarka u hayaan u sheegeen waxaana si ballaaran u cambaareeyeen isla markaana ay ku tilmaameen dawarsato danaystayaal magafayaal iyo weliba xoolo cirdoon fadhiid ah shakhsiyaadka ku maxaabsanaya magaca beesha jidwaa qabsame ee qurbaha kula dhuumaalaysanaya shirarka sharci darrada ah ee lidiga ku ah dastuurka dalka iyo kan deegaanka Soomaalida Itoobiya ee lagaga soo horjeedo horumarka ka hana qaaday deegaanka nabadgelyada dhidibada loo aasay iyo nidaamka maamulka suuban ee lagu baraaray shirkan ayaa waxa hogaaminaya salaadiinta iyo suldaamada beesha jidwaa qabsame ee degan maamulka magaalada Qabri Bayax oo ay kamid ahaayeen Suldaan Cabdi Suldaan Maxamed Bakeeri Suldaan Badal Daahir Ismaaciil Suldaan Maxamuud Cabdi Yuusuf oo ugu horreyn ka hadlay ujeedada kulankan beesha jidwaa annagu ku hadlayna magaceeda inteeda dhalinyarta iyo inteeda odayaasha iyo inteeda culimadiinka oo waliba bartan ka hadli doona fikirkoodana si fiican u dhiibi doonaan annagoo cid gacan nagu leh oo dawladii ayna jirin dabadana naga riixaysaa ayna jirin laakiin danaha iyaga iyo midnimada Soomaalida Itoobiya dawladdeena ilaalinayna ayaa waxa ku cambaaraynayna fikirka ay maanta qaateen nimanka qowlaysatada ee magaca qurba joogta biinaya inteena way joogtaa fikirkaas maanta mid loo baahan yahay hagardaamada dhibaato maan u baahannahay soo kama soo horjeednataa furitaanka kadib ayaa waxay mikrofoonka ku wareejeen odayaal dhaqameedka qurbo joogta dhalinyarada iyo hooyooyinka ka soo qayb galay kulankan ay ku cambaareynayeen shakhsiyaadka sheeganaya magaca beeshooda ee ka soo horjeeda horumarka deegaanka shirkan maanta annaga oo reeraa qabsannay waxaan u qabsannayna waa wax dantanada ah markaan maqalay shaqo dhaaxun ee nimankaasi ay meesha ka shaqariyeen ayaan annaga oo beeshii jidwaa ayaanu tashanay waxaanu ku tashanay nimankaasi waxay wadaan inaynana matelin inaan maanta aanaan shaqo ku lahayn waxay wadaan inaanaan ka yeelaynin inaanaan maanta aynan shaqo nugu lahayn kolkaa dawladinimo soo abaabulin annagaa isa soo abaabulay waxaan isu soo abaabulay waxa weeye dantanada iyo maanta inaan ka hadalno mustaqbalkanagu halku marayo inay ku ciyaaraan oo ku tuntaan bay doonayaan nimankaasi waxa weeye ninka bidaarta leh ee nogob hotel lahaa iyo maxamed bade iyo magaraysa ina dayib iyo maanta ragga la sheegaya ee maanta 5-6 nina waxa weeye nogob hotel buu lahaa waa kii u fiicnaa qadjiga 7 qadabaq buu ahaa maxaa ka maqnaa fitan baa kicisay iyo balaad wato wata halkaa isla tag maantana wuxuu wado inuu soo gaadhsiiyo hadduu doonayo Qabri Bayax iyo jigjiga kama yeelayno waana ka hortagaynaa annaga oo midnimo ah waxaan jeclahay shirkan maanta ku qabanay halkan kiisiina inuu ku qabto bartire meeshaas iyo jidwaaqa kale halkaa jooga oo ay maanta si fiican iyaguna ay u qabtaan oo maanta ay ka shaqariyaan waxa inaga dhab ah ee maanta aan doonayno وننا إنما درنا إنك تنتل وردت أنا من أنا قال ما تسسوني كوال ده قرب شاكت الله ما إنها هكا قاضي وإدي رجال ين ماتا وعيشاga ين إننا الشعب هيسن إننا الطد هيسن إننا والله والقلا هيسن إننا الناس كعب يسيهين وهالكانا أين إنك إنما تل ورمك يا كنافن ما يدبي كنافن وين تريبا بركة وحوي إنما كانوا وحلا وما كفيال ساس وما كفيال ما نقوله ما كفياساس نما ونك تلك هوسين عرقبتين صاروا نولا ما كحنا تلفونك نك إلا صح الله با دقا يجب حلينا ورنما كعبينه عبتي لهي تندقي تكبر الله صاروا حكومة دني حزب جنونا ما تهضم مرتبيها كسوق دقاق الشق على القرى إيا إلا عراسي تود حسا إبتعال الريجة كقضن إيا تهرمرنا كقضن إيا أنت عافمان كجرتا إيا أنت بارة كجرتا إيا أنت وحبرشة كجرتا ورسالة تنمية مركا وحوية وحي أي ماتا حكومة دين نوقبتين إيا حزب جان وحي نوقبتين
lama qari karo way noo muuqataa waan aragnaa nina nama melmelayo nina matala nimankaasi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanaynu meesha isugu nimid innagoo deegaankana waxa weeyaan ina sukeen keenay waa dhib su-aalaan marka hore weydiinayaa kuwa maxaanku dhaha manasooti iyo meelaha maaragtay tirada yar ee ka hadlaya su-aaluhu waxa weeye kow ubba waxa weeyaan dalkeenna intay dagaal ka waday ee ku dhimatay ee ku dhaawacantay ee ku baaba'day waad ogeydeen maad leedihiin cid xataa tacsiyo u timid ama ka qayb qaadatay ama waxa weeyaan qof dhakhtar yaalla oo isbitaal yaalla xataa dawo u soo diray maad leedihiin waa maya laba abaaraa ka dhacay 2 sano dadka dalkeenna ku habsaday masiibo ah maxaad taageero ahood ka qabateen maxaad kaalmo ahood u fidiseen dadkiinna iyo dalkiinna ma jirtaa haba yaraata haba sabadnaatee waa maya anaa ka jawaabaya ma jirto weeye xogagaal annaga waddanka iyo dalka iyo shacabka iyo deegaanka annaga u ah oo dee hoggaan dhaqmeedadii u ah ma jirto 3 qurba joogta idinla qayrka ah idinla midka ah waxa weeyaan maalgashi warshado wax kasta dee ilaa heer qabale ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa heer kilil ayay maalgashi ku sameeyeen qurba joogta idinla midka idinla dhalatay maxaan ku dhahdaa dawlad deegaanka ah maxaad ka qabsateen maxaad ka qabateen maxaad ka deegaankiinni geliseen maxaad geliseen wiilasha qabri bayax ka tagay ee awoodoodii way qabteen oo ah dhismay ka samaysteen waxa weeyaan dadkooda biilka u soo diraan waxa weeyaan way ka war hayaan nolosha dadkay og yihiin war kuwan qowsaarada ee waaweynow ee meesha dhashoodu ku gabowday ee aynan carruurtoodu af soomaaliga aqoonin inaad jawhar la xidhiidha jawhar waxa baan ku garay inaad jawharatiin ama ina cumar cismaankii soomaaliya ka tegay jananka ahaa labadaasaaba tihiinba waxa weeyaan marka waxaan idiin sheegaynaa oon idinka digaynaa in aad waxa weeyaan dib uga noqotaan nimanka magaca jidwaa ku baayac mushtaraya ma waxay leeyihiin ummadda ay magaceeda sheegayaan kulli way wada dhagalaadoo annagaa turjubaanu ah kulli way wada indhalaadoo annagaa indha u ah kulli waxba ma garati weeyo annagaa caqli u ah ma saasay leeyihiin hadday wax naga maqan yihiin annagaa og haddaanu waxaysanana annagaa og haddaanu dawladda wax weydiisana dharaar iyo habeen sida carruurtan ku soo oynaayo wixii yaree nagu dhaca waan weydiisanaa kolka anugu waxaan leeyahay dadka kaskiisu sidaa yahay ee ummadda intaa leeg magacooda inay saylad geeyaan oy ku baayac mushtaraan doonayaan oo le khalaa'iqda intaa leeg waxayna garanayn baan annagu u garanaynaa waxayna iyagu arkin baan annagu aragnaa leh waxaan leeyahay iyagaa indhala iyagaa caqlila iyagaa weliba iimaanla waxaan anugu xagga fikirkayga leeyahay dad habawsan weeyaan dadkaasi waan isgaranaynaa hebel iyo hebel baan isu garanaynaa malaha kuulinnimada ay u tageen ameerika iyo yurub iyo xaggan ayay moodayaan inay yacni wax dawladaha hore maroo kale yay moodayaan oo waxba la noqonnay isnagoo isniqiinay wax yacni xoolo ah oo kale inaan la noqonnay baan u malay iyo mooji inay wax cabbeen oo isikraansanaayeen oy daroogaysnaayeen aanu kala garan maayo laakiin dad wax garanaya oo fikir leh oo caqli leh wuxuu ku fikiro iyo wuxuu ku riyoodo iyo wuxuu sameeya midna ma ahayn taasi horta saa weeye waanu cambaaraynaynaa waxaanu leenahay magacayaga dhiga waxba annaga nooma haysiin waxna nooma tiidin inaannu hore u marray annagaa isog inaannu dawlad leenahay annagaa isog dawladda annagaa doorannay tu dusha nagaga timid oo na qabsatay ma aha annagaa doorannay iyagu nooma ayna soo doonin marka inay nooga turjubaan nalamana ayna doorannin iyagu marka intay tagaan yurub iyo ameerika inay nooga soo turjubaanaan oo yidhaahin dadkii waa saa iyo saa annagu waa saa iyo saa dee caqligaasi xagguu ka imanayaa
isku danba ma nihin isku shaqana ma nihin dawladdana annagaa doorannay waxaanu ka tabanaynaa annagaa u sheegan wixii naloo qabtay ee ballaaran ee suldaanku uu soo faahfaahiyey waa naloo qabtay wax kaloo badanna waa sugaynaa waxaan leenahay hadday dhegaleeyihiin oo indhaleeyihiin oo caqli leeyihiin hana daayaan ma doonayno ma rabno. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجندها نالكن ما أنت لقاها هذا أو نمان اسمه عابي أو إيجو ماركتي لو أرانك رهنتي وابقادوي إلهي وحليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هو اللي النبي رميه إيمانك لقاه ليو إلهي أضيعه رسول كيسنا أضيعه أولي الأمر كنا أضيعه من أولي الأمر مركا أولي الأمر وايو إلهي قرن سبحانه وتعالى أضيعه لإن ليه وأمروي رسول كيسنا أضيعه عليه الصلاة والسلام وحاك الله أضيعه لإن ليه وأمر كودا قاتل لإن ليه أولي الأمر وايو مركا والدولة دوي دولة دينا مركا ما أنت سيدة في عن لغة صاحب الله روح كستو أو ما أنت وحجرنا يا كما قرصنا رنت مرة لا هذا حرمر هديت هاي النبي قليه هديت هاي حارد الله صامر إن روح الوكور هيا وحول النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة النائمة لعن الله من أيقظها بودي صلوات الله وسلام عليه فتنة الشيء اللي يرعداي وشيء هردوي الله لعن الله كريدو روح فتنة ذات توسية برارجية والخبر رما مركا وحان أوران كراني مركا هذا اسمه عابي إننا أن نمترين مجاعنا كو واسنا يا ما كو قولي سنة يا فدنا هرودي بكعنيان فدنا ده هرود عدة مرة كعني سنة واجب عيني أي نقول تاينا أمان تنكو ظهرني مرة سلا درجة وعمر قال لي نقول بهاي نما كان عم باريننا ولي بعلماء الدين كان أنا قوي لي مجا علماء الدين كان نما كان نوع عصا كلاء arrimahan maaragtay maanta fidnada inagu tuhuri fidnada inagu kicinaya dhammaanteen inaan maaragtay inagoo midaysa ka soo horjeetana la doonaya dadkii waxaan ahay halkan ka dhoofay anu waxaan idin sheegayaa dad jid waa materi kale inay nahay dad jaha qaldan ku socon inay yihiin waanan cambaaraynaynaa waxaan qaadanaynana maaha halkan haddaan joognana waa la dagaalamaynaa xagga haddaan joognana waa la dagaalamaynaa waxay idin soo wadaan oy maanta kuwaas idin hayaanna ma jirto dadka meesha jooga hoolka jooga wax yar baan u sheegayaa anugu waxa yar u sheegaya waxa weeyaan war dadku waa laba nima yihiin waxa weeyaan inteenan imika maanta hoolka fadhida waa nin ilmihiisu dhoofay oo wiilkiisu dhoofay nin aabihii maqan yahay kuwiin adeerkii maqan yahay kuwiin aabtigii maqan yahay weeyaan dadkan maanta inay nimankaas ku loo faran ay doonayaan meel kale kama ayna bixin qabri baaxda ka bixin niman shacab America ku haysta ma aha qof walba ilmahaaga waad la xidhiidhaa walaalkaa waad la xidhiidhaa in adeerkaa waad la xidhiidhaa kaad la dhalto waad la xidhiidhaa qof walba waa inaad u sheegto nimankaas hadafkoodu inuu qaldan yahay waxaynu wada ognahay 26 sano maanta maraysa isbeddelka Itoobiya ka jira 18 sano seeday nooga lumeen isbeddelkan maalintii madaxweynaheenu xilka la wareegay 8 sano gudahoodana ku jira bilaabkii markii 18 wuxuu soo gaaray deegaanka iyadoo saddex fadhido oo ubadii ay dhex fadhido xafiis walba oo ka qandaraaska qaadanaya waxaanu mara ka wadanahay inuu ay ninka ubadee jooga kilalka inta heshiiyaha halka lacagta inta lagu qaybsan leeyahay marna anaga gublin baa noolaa lacagta noo qayb hawl aad u adag iyadoo taagan tahay maalintii madaxweynaheenu sharafta la bilaabay wuxuu qolobkii koowaad qabtay inuu kala saaro horta kala saarkii ilaahay uu ku guuleeyey wuu kala saaray kadib haddana wuxuu bilaabay inuu ciidan adag deegaankan sameeyo ciidan deegaana xilligaa way adkayd sida ama ciidan lagu samayn karo ama loo hubayn karo hubkiisa Itoobiya looga helay ilaahay uu ku guuleeyey madaxweynaha wuuna qabtay tallaabadii koowaad wuxuu qodobkii saddexaad qabsay ubbo intay reeraha dhulkaas ka dhex gasho iyadoo umusha ambalaasta ku qarxinaysa oo odayga iyo sheekha dilaysa haddana sakaanu idinka qaaday dadka kule oo sako way diilaysa halkay marayso in ciidankeennii markii uu ku guulaysanay intuu beeliya dadkii gabadeeg dhex qaaday oo dhulkii dhex qaaday xoolo dhaqatadii ka dhaadhiciyeen waxay niman kale yihiin
laguna kala jaro qodobkii afraad nimanka dalatay oo bee waddanka odhan naga baabiin jiray in haysto wuxuu ahaa dhulbidray qurba joog baa biilin jirtay oo lacag sii jirtay wuxuu madaxweynaha sharaftani naftiisa u huray inuu Ameerika iyo Yurub iyo Australia galo oo intaasoo shaqo loogu dhigay marka wadanaay sidii loogu dil lahaa isaga uuna kaga guuleystay wuxuuna ka jaray in looga soo diro jal iyo qodobada qurba joog wixii loola jiray wuxuu tusay in dalkoodii ka yahay oo maanta waxaad aragtay ay ka qabsadaan qurba joogteen arkaana ubay ummadda ku leeyahay lacagtoodana uu ka dhaadiciyo masaakiintii ummadda lagu leeyahay wax lagu leeyahay lacagtoodii tahay way xaaraanta wax kaga baxaysa qodobkaas marka iyadana saa loo soo afjaray waxaad ogeydeen wax riig la yidhaahdo oo nimanka dhoof sheegano ceel harre la yidhaha baa laga qoday 18 sano hore kii harre la oranayaan sidii ku baaba'ay maanta waxaynu marakanahay 8 sano gudahooda waxaan idinka soo qaaday wasaaradda ama caafimaad ama biyo ama wax badan noqotay waxa ugu badnaa 3% halkay maanta 95 wasaaradda wali horumar ka marayso ama 98 ama 97 wada marayaan ka ugu badan baa 3.3 ah toha waqtiga maanta waxaan maraynaa in heerkaad aragtay biyihii bilqod laga qaaday maanta inay gaaraan doolo oo qasabad ay marayso oo gaashaama gaadhay kuwa dhul waala laga soo qaado 27 inay maanta halka tagayaan bundooyinkaad aragtay waddankeennii kala go'naayay gubeysigii waddanka inuu isku xidho doonayaba kari inuu maanta ku guulaystay madaxweynaheenu inuu u qabto wuxuu qabtay dib u curasho ay dadkii iyo deegaankii mid ku yihiin cid walibana maamulkeedii subalaa loo dhaadhiciyey haddaba cidda iyadoo marxaladdu halkaa maanta marayso rabta inay carqalad dib ugu bilowdo jid waaq bay sheegtay jid waaq ma odhanaya waa jahlumiyaal nimankaas waxa weeye waxa jahlumiyaal ku yihin masaakiinta yarada shaqo tagtay wadaniinta ee inta halka shaqo tagay dhulkooda u soo xoogsanay ayay rabaa inay jahwareeriyaan oo jihada ka lumiyaan waa dana gaala waxa weeye qurba joog waa naqaanaa deegaankeenna waa la keenay iyagoo konton 20 u socday yimaadeen waxbay qabsadeen warshaday ka qabsadeen iyaga maxaa u diiday jid waaqay sheeganayaan 20 qurba joog wada socoto hal meel wax ka dhisata ama warshadka dama la hayo 6 jeer maxamed bada yimid laba maqsina kama dhisan jigjiga wax gurigu ka dhisan xitaa jiri wax kale iska daa marka waxa weeye xaqiiqda in laga horta laga maaha waxaad weliba iskuul u raacin dee mulo degmaa oo wax qabadkeedii oo dhan u dheer yahay ya oo intaasoo barkeed ama intaasoo rika dhisan yihiin abasuul bay kamid tahay araarsaasoo kale ugu jirta oo waxaad aragtay laga qabtay maanta waa imise degmo harooleys baa ah salaxley baa meel kasta ah horta aragtay degmaa jirta inta kawsare ka jirta waxa horumarkee dhabtee jira ee madaxweynuhu sida dhabta u soo dejiyey oo qabtay ilaahay ku guulay cibrkiisa allah dheereeyo waxa weeye maanta ma oran karo cidda way qashqashaysaa leeyahay ama wax ka sheegta waa ku xaqiiqda ka fog oon waxbana ka ogeyn anuma oran kare ma ogi way ogyihiin laakiin xaasidnimay ka tahay xaasidnimay ka tahay baan aaminsanahay ruuxu hadduu wuxuu qabta lama xaqiri karo wax cidna qarin karto maaha waxa weeye marka nimankaas tan yaroo gaara ayay leeyihiin dani ay leeyihiinna kuwa u socon ma aha ninka qiimayn kara 8 sano inta maanta inoo gudbatay inoo qabsatay wallaahi billahi tallahi inuu waxba ka sheegi karin ammaan iyo garabgal mooyaane inuu wax kale odhan karaa baydhita marka anu waxaan leeyahay waan cambaaraynaynaa waxa weeye jahalumis cid ay matalaan nimankaas ma jiraan waxa ay u jeedaanna wax u soconaya maaha dalka iyo dadka annaga mas-uulka odayaashoodii culimadoodii iyo dhalinyartoodii ama tacliimtoodii baa joogta waxay uga baahan tahayna ma jiro hadday sida ummadda qurbatoogtan caadiga oo etoobiyadan iyo deegaankeena joogta ka mid noqonayaan waxbay qabsan lahaayeen waxba inayna qabsanayn baan salgaa nooga waxba qabsan waaye iyo ku meeraysanaya mucaarada iyo waxbaa naga maqan waxa ka maqan waa maxay annaga waxba nagama maqnee ameerika wax kaga maqanya iyaga masaakiin yareero walaalo shaqaysanayo dadkeennii hagaagsanaa iyay doonayaan inay jihada ka lumiyaan iyo horumarka ummaddu iyo deegaan ku jiro kamana lumin karaan waan cambaaraynaynaa wayna ceedaysan yihiin umana xil qarin karo madaxweyneheenana cibrigiisa alla raajiyo halay noo siyaadiyo DDSI way dhaaftay qabiil magacii kala qoqob
reehebel ku dagaalan ku hawlgal way dhaaftay iminka maamulkeenu waa maamul suuban horumar baa ka jira anigu waa markii saddexaad aan imaado mar walba waan imaadaa waana la socdaa dhagax buur baan tagaa gobolka Faafaan meel walba maraa meel kasta ama ceel baa laga qodayaa ama biyo la gelinayaa ama caafimaad baa laga dhisayaa meeshaad martaba waxa ka socota shaqo dawladdu ay ka hayso waan uga mahad celinayna haddaan anoo ku hadlay qurba joogta dibadda ee caafimaadka qabta ugu dambeynna salaadiintii iyo suldaamadii beesha jidwaa qabsamay ee degta maamulka magaalada Qabri Bayax ayaa kulanka ka soo saaray baaq ama war murtiyeed ka kooban 8 qodob oo kala ah kow annagu ah beesha jidwaa qabsame cuqaasheeda waxgaradkeeda aqoon-yahankeeda iyo bulshada inteeda kale haweenka iyo dhalinyartaba ayaa waxaan si weyn u cambaaraynaynaa fikrada nabaddiidnimo ee qowlaysatada magafayaashay ka wadaan wadamada qurbaha lambar 2 in aynana matalin afarta tuug ee ku qalaabsanaya magaca beesha jidwaaq lambar 3 in ay beeshu u taagan tahay midnimada horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hana qaaday guud ahaanba dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya lambar 4 inay beeshu diyaar u tahay halganka iyo ka hortaga fikrada ciidiga ah ee ku dhisan qabiilka isla markaana horseedi kara dib u dhaca lambar 5 inay beeshu taageersan tahay hadafka iyo mabaadi'da ay xisbigooda iyo xukuumadooda u dejisay iyo istaraatiijiyadda ku dhisan cadaaladda iyo horumarka taasoo beeshu sida beelaha kale ee Soomaaliyeed ammaan iyo mahadnaq u hayaan mudane madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisaba lambar 6 inay beeshu taageersan tahay nidaamka dib u curashada oo ah nidaamka kaliya ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya lagaga saaray cudurka dilaaga ah ee qabyaaladda laguna abuuray maamul suuban lambar 7 in beeshu wax xuquuqdeeda ah oo ka maqan aysan jirin ulana simantahay sida beelaha kale ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee helay xuquuqahooda lambar 8 inay beeshu diyaar u tahay la dagaalanka saboolnimada oo ah cadowgeena koobaad